dowladda hoose ee degmada Burco iyo madaxda shirkadda Somaliland Fire Safety ayaa olole nadaafadeed ka fuliyay xaafadda Jaaliyada magaalada Burco waxaanay baneeyeen goobo gaadiidka saliidda wasakhowda lagaga sii daayo oo ku taala xaafadaasi Jaaliyada taasoo halis ku ahayd caafimaadka bulshada deegaankaasi waxaana la hadlay warbaahinta Shiina Fallid oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo madaxa shirkadda Somaliland Fire Safety Maxamed Xaaji October kuwaasoo ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Burco ilaalinta nadaafadda deegaanka waxaana ka mid ah hadaladoodii halkan aanu maanta taaganahay waxa weeye xaafadda Lixle meeshan waxa caadaystay oo saliidda ku sii daayay qashinka baabuurta deebadankeeda leeyahay magaaladan timaada ama joogta iyagoo aan eegin nubadkooda iyo dadkooda iyagoo aan eegin caafimaadkooda halkan waxa inaga xiga iskuul secretary ama secretary baa inaga xiga oo arday aad u fara badan ku jirto bahashan saliidda la yiraahdo qashinka laga qubaana xanuuno badan bay keentay oo kasarku ka mid yahay dadkeenuna aad uma yaqaano waxa badarkaysa geerishada iyagoo dhulka ku rusheystay oo kula sawir baa ka dhiganayna boorkan iska nabayna xanuunada keenaysan aanay warba u hayn waxaan halkan uga mahad celinayaa Somaliland Fire oo ka socdo Maxamed ilaahay mahadi maanta tii hore ka saaray meesha ee goynay ee ciidda ku shubnay ee boor ka taagnay imika wixii ka dambeeyay ninka ku shuba ama soo agmara waxa talaabo sharci waafaqsan ka qaadayna hadii ilaahay yiraahdo sida la socdo xildhibaanadii deegaanka la soo doortay baati ummadda waxa uu sheegi jirtay markii la idin dooranayay in wax ka qabanaysan nadaafadda iyo bilicda magaalada bale waaba ka sii dartayba meel ku dhow saliidda wala laga sii daayo way dhacdaa taa maxaa wax uga qaban weydoon magaalada bartikeeda inta koona magaalada ka hadlaysaa meel kasta oo magaalada ka mid ah waanu ka qabanaynaa geerishada imika laftooda waxaanu siinay digniin baanu siinay aanu leenahay wadooyinkana baawursana ku qalaysan ama ku waxaynaysan ka daaya saliiddan aanu ka siinay meel kasta oo lagu qubo iyo meel kasta oo qashin quba hadee beedkeeda leeyahay cidda dambe ee ku sameynaysan ganaax baan ku soo rogayn anigoo ka socda shirkadda Somaliland Fire Safety kana mid ah dadka deegaankan markii aan arkay dhacdadan saliiddan lagu shubayo baabuurtu ay ku shubayso dadkii ila qaatay inaan wax ka qabano oo maanta iyo shalay si kala haybood kala garanaysan waxaan ku baraarujinayaa dadkeena hadii aan nadaafad jirin nolol ma jirto marka qof walba inuu xil iska saaro oo dhulkan inuu leeyahay uu ogaado deegaanka iyo sabadaba way dishaa u mahadnaqayaa qolada warbaahinta oo arrintan ila qaadatay oo wax weyn ka qabatay sagal chat dowladda hoose علي داير محمد بوس TV Universal Bro